munaasabadani ayaa ahayd mid habeennimadii xalay ahaa lagu qabtay hoolka shaqaalaha dowladda ee magaalada Hargeysa. waxaa munaasabadani lagu shaacinayay Urur La Magac Baxay ururkaasi oo loo soo gaabiyay Somaliland Engineering Association. waxaana ururkaasi ku midoobay dhalinyaro ka baxday jaamacadaha dalka kuwaasi oo bartay engineeringka. waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland Axmed Faarax Adare, gudoomiyaha ururkaasi iyo badi ardaydii ka baxday jaamacadaha dalka qaybta engineering inama iyo hawlaba. ugu horeyna waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha ururkaasi oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada ay ururkani u aasaaseen. isagoo ka hadlaya ayaa waxaa hadaladiisii kamid ahaa baahida markii aanu aragnay oo dhadhaminay oo xaqiiqsanay in loo baahan yahay in urur engineeringkii la aasaaso. marka la eego roadkeeni maanta, marka la eego shaqada la qabto, markaynu eegno light, marka la eego telecommunicationka, marka la eego investment policyga loo baahan yahay ee dalka looga baahan si aynu u soo jiidano investors badan oo caalami ah. intaba waxa lagama maarmaan noqotay in ururkan la aasaaso. ururkan waxa la aasaasay 26kii bishii 6aad 2016 waxaana la diiwaangeliyay oo si rasmi ah dawladda Somaliland u diiwaangelisay 1 January 2017 waa isla sanadka. labada hawlood ee ugu badnaa ee la qabtay waa labada hawlood. haddaba maxaa faa'iidooyinka ku jira? maxay yihiin? koow isbarasho waa qodobka ugu muhiimsan oo xafladan caawa aynu isugu nimid loo jeel qabay hablaha injineerada inaynu ogaano oo inagala soo qayb galaan xafladani. aad baan idinka mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ee aad na siiseen. wasiirka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, gudoomiyaha Cismaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. dhinaca kale waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay dhalinyaradii munaasabadaasi ka soo qayb gashay oo hadalkeesa kala daba qaatay ayaa waxaa hadaladoodii kamid ahaa. run ahaantii maanta aad iyo aad bay farxad u leedahay inay dhalinyaro intan leeg walibana injineero dhalinyaro badan halkaas ku timid. maadaama inaan kala maarmin waxaan gacmo wada jir bay wax ku gooyn karaan aan iscaawino inagoo gacmaha is haysanaan horumar gaarno. aad baan horta u soo dhaweynaynaa inaanu ka qayb qaadano oo waxaanu experience u leenahay ee hawlahan ka shaqeynay associationka ku biirino oo si wanaagsan oo qurux badan aynu hawshii u wada qabano ayaa loo baahan yahay. gabagabadii waxaa munaasabadaasi soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland isagoo dhalinyaradaasi ururkaasi ku midowday talooyin u soo jeediyay ayaa waxa uu wasiirku yiri waxaa caawa injineeradii fiilkaas waa fiil aad u ballaaran qaybo fara badan leh. associationka waa baradii isu keenayay laakiin waxa loo baahanayaa inay wax waliba lahaato associationka haddana u sii gaarka ah oo wax loo baahan yahay la xoojiyo. Soomaaliga standards waxaan ku leeyahay mala waa fasalkii koowaad standard 1 standard 2 waxa loo sameeyay heer marka standardkii si loo gaarsiiyo fasalkii ay u baahnayn dowladda si ma jiro injineerada fiilkaas ugu wadanahay iyo wixii siyaasadda anagu waxaan ka caawin doonaa wixii intii taabkayaga ah ee xadiis nidaamkii siyaasadii lagu hagi lahaa iyo xeerarkii loo dejin lahaa insha Allah taala waan ka howlgali doonaa. waxaan leeyahay caawa hambalyo in Allah intii ka soo fikirtay ee soo diyaarisay waqtiga ku qaadatay iyo intii qayb qaadatay waxaan leenahay jazakumullahu khayr jazaa. waxaan leeyahay injineer Axmed oo aftahnimo iyo ma sha Allah iyo aqoontii intii bayashayna waa good promoter. waxaan oran karaa xagga media anagu ka qaadan karaa qayb aad u weyn oo la aqoontii engineering oo kaliya taa. waxaan leeyahay jazakumullahu khayr jazaa waan mahadsantiin. xamse jaam xuseen telefishinka caalamiga Star Hargeysa.